إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأتأسنين يا لبذا ويل آدم بطي يغو كصوبحي صلاة hore Soomaali wixii ugu maamahday nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. YouTube channelka aad daawanaysan waa Soomaali Tijaabo 21. Falaanda ku cusub tahay subscribe saar. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii xanuunka badneed ee dhacday 2 maalin ka hor. Dhacdadan hadda ma dhicin, waxay dhacday 2 maalin ka hor ee dhacday adiga. Dhacdadan meel waliba waa laga sheekeynayaa Facebook, TikTok, Instagram, meel walba aad arko waa laga sheekeynayaa. Runtii dhacdadani waa dhacdo haddii si loo fiiriyo aan weligeeda soo marin geyiga Soomaaliyeed. Waa dhacdo xanuun. Runtii weligay ma arkin ilmo walaalo ah oo isbaabi'inayo. Waa runtii dhacdo aan weligeeda soo marin. Waa qiso xanuun badan. Inna lillahi wa inna ilayhi. dhacdadani sidee wax u dhaceen haddaan iga sheekeeyay. Labadan wiil ee sawirka hortiina ka muuqdo ayaa waxay ahaayeen imaam. Walaalkooda labadan wiil walaalka la dhashay wuxuu ahaa nin gaal ah. Walaalkooda ayaa toogtay. Micnaha warkaadii aad si kale u dhaho, labadan wiil wuxuu ahaa 2 wiil oo muslim ah. Aabahood wuxuu dhintay bilooyin ka hor ayuu aabahood dhintay. Labadan wiil markuu aabahood dhintay way soo islaameen. Labadan wiil waxaa la dhashay 1 wiil oo gaal ah. Aabahood hore u dhintay wuxuu ahaa nin gaal ah. Adeerkooda ayaa wuxuu kufsaday hooyadood. Marka labadan wiil iyagoo maalin tujinayo salaada taraawiixda laga baxay ee uu gurigooda imaaramaan ayaa waxaa arkay wiilka kale gurigooda uu joogo. Wiil markay ka soo baxeen salaada taraawiixda iyagoo joogo gurigooda ayuu wiilka kale oo gaalka ah madax ka toogtay. Marka waxaa leenahay labada wiil oo tacsiinaya wiilka toogtayna hadda wuxuu ku jiraa gacanta booliska ayuu ku jiraa. Usna waxaa lagu xukumay dintooda shaa. Walaalaheena muslimiinta waxaa leenahay waa u tacsiinaya aniga iyo bahda Soomaali Tijaabo 21. waxaa leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.